they speak a common language. Laq erayo uma farqa erayo ma jira. Markaad eegaysid southka timaadid aad arkaysaa erayadu inay duwan yihiin. Erayada matalan malayga, guduudka, waxyaabahaas. In the northern dialect, I'm not talking about Somaliland, a linguistic. Northern dialect, wax allaala wixii shabeellaha ka koreeya. Waxay ku hadlaan waa the same. Eray kaliya farq ma. Waxay wadaagaan. Way afarta la wadaagaan, which is interesting. Kalluun. Laba wax bay la wadaagaan afartii eray. In which we think markay Soomaalidu meesha timiday inay liqday afar. Meel iska banaani ma jiro. Inay liqday afar iyo eray. Erayga markaad Arabi khitra waa ikhigi Arab. Heradiga. Kalluunka afarta. Asaanka afarta. Anyway, there are a whole terminologies. Like, anyway, what I want you to just say is there are multiple dialects. Meesha afku leeyahay waa meesha afka kaliya kuko waa meesha af northern kuko uu ka bilaabo multiple dialects. Magaalada afku ma ahan meel afka laga jaray. We really talk about dialects. Galadigu waa mayda. Waan ka baxaya, but what could be interesting? What could be interesting waxa weeye luqadda waxay cabirtaa taariikhdaada, waxay sheegtaa waxa tahay identity crisis bay abuurtaa. We are Canadians. Everybody is a Canadian Somali. Laakiin xaq baad u leedahay inaad fahamtid waxa ina miday. Marka inaan lahaano wax ama week ha noqdo ama maalin ha noqdo ama dhowr cisho ha noqdo aan leenahay waxaynu u celebrate karaynaa, waxaynu xusaynaa, waxaynu wada leenahay. There are enough things in that. mararka qaarkood waxaynu kala kaxeeyay ma qof haddaan weydiiso tirahay wuxuu kale oo sunnada islaamka laakiin mentally haddana waxaan sidaa wax badan oo ina kala kaxeeyay mentally wax badan baa jira laakiin waxa kaliya aynaan inagu dooran aynaan kana bixi karin waa luqadii waxaad samayn kartaa markaa inaad haddaad doonaysid taariikhdaadii ogaatid waa inaad luqaddu waxay waa hooyga wax walba idaas waayo haddaad matalan guuraysid. And I'll give you also a good example. Erayada geela iyo erayada caanaha kala duwan ama waa erayo neutral oo looda iyo geela lagu isticmaalo ama waa erayo looda lagu isticmaalo which indicates marka hore Soomaalidu inay meelo biyale geelu mar dambe u imaanaya oo meelaha aan lagu marka population ku bato environment ku isbedelo ayaa loo guuray. meelaha one livestock lagu noolaado ama riyo ama geel like marka terminology-ga aan eegnay iyo terminology-ga caana different types of terminologies the maidi maxaa tadaba la meeshan waa isla the same language markaad eegtid ilaa jiidaha soo eegtid terminology-gu either ama waa neutral terminology geel ama waa neutral waxaan ka wadaa waa markaynu leenahay sida xamdi nin iyo naag baa la odhan karaa ama shukri saas oo kale waa neutral oo wada isticmaal ama exclusively waxa la odhan oo waa la isticmaal مثلا qaali I'll give you a good example. So terminology so there are some indications Somalidu intaan density-geegu badan ayna guurin meelaha more environmentally stable ka ayna guurin inay deganeen meelaha kaas. Anyway, I think it's markaynu halkan imanayno community baynu ahay waxaynu wadaagnaa imaatinkeenu waa history waa qolo oo kale wax isku mid ah nagu soo dhacay si isku mid ah meesha waxaan la kulanay challenges wax halkan jira oo si isku mid ah noo saameeyay haddaan markaa doonayno inaynu meesha ku noolaano waa inaynu inaynu qolanahay fahamnaa waa inaynu fahamnaa inaynu wax common wada leh wixii baaski ma wixii ina keenay meesha wada leh then waxaynu nimidnay meeshana sibay inoo wada saameynaysaa si very common waxaanu maskaxda ku haysanay wax shaqeynaya marka si common ay noo saameynaysaa marka inaynu imika waxaan joognaa dhowr ilaa 9 sano ilaa imika waxaan leenahay inaan fahamno waxaad moodaa marka laga hadlayo inaan imika u nimidna shaqadeenu imika weeye dadkii yani iskuulada halka ku dhashay baa iskuuladii ka boqol shaqeeya wali haddana mentality waxaan qabnaa in meeshan ay imika u nimidno ay si tahay
waxa inagii halkaynu awoodi lahayn inaynu darisno ayaa layna darsaya mujtamacyadu markay halkan clinic waxaa jira say waxaa la yidhahaa haddaanad lahayn dhul sida Coca-Cola ama aanad lahayn institutions sida Jewish communitieska ultimately by third generation what disappear close marka haddaad adigu baara first generation to hold reerkiini iyo wixii u dirtido mar walba biil u dirtido franchise ka badan la dhigay iyo iskuulada iyo waxaasna lacag ka hela second generation waxma bixinay marka ay waxay la haboon yani in dadku ay fahmaan in afka lagu hadla second generation kana waa inaan aqbalayno dialect any society has a dialect Mexico waa inaan laga xisho yani second generation waa inaan ka xisho they have to express them it's a language so language 21st century waa modern it carries it embodies a lot of new elements aynaan lahaan jirin laakiin markuu aabihii la hadlaya ama hooyadu waxaad moodaa wixii sidii Soomaaliga loogu hadlayay inay si kaliya u tahay inay saxana tahay inayna weligeed isbedeleen wax saxana everything changes aqalkaaga haddaad 20 sano aad maraysid maalin kale aad iska garanaysaa waxaan la arkay everything changes anyway marka anigu ka baxay السلام عليكم وكذوك وادنا سنتهاي محمد يا رب بدون ما ينهري ومقال أيو نذير كده واجي لكن يا تاريخ دي يلقى في بعض كافة بعض من جمل عدنا محمد ذاك السنة سبعين كرا نرجو جويل وقدها جوف ولا تسكون حنا كرا حد لو حوجد بنا برنامج كسي ودلنا وحائل وحجة runtii qof in badan arrinta ka hadlay horta maanta waa maalintii International Mother's Language Day marka waa afkii hooyada laga hadlayaa ma xitaa maalintii luqadaha waa maalintii afka hooyada marka adeer Maxamed Xuseen Haadi in badan ayuu yiri waraan arrinta qabano runtii sanad kasta marka maanta waxaan ku faraxsanahay in ay arrintani Ottawa ka hirgashay oo ay dadku soo bandhignay runtii dadaalkana isaga iska leh dhalinyarada soo qabanqaabisay la shaqeysay iyaguna runtii ajir bin Allah ka siiyo marka waxaan doonayaa adeer Maxamed Sinai Sulu بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد مرة برضه نقصوا نقضي كل يارود هيستوريان ما يجي يوم مثلا هذا كلاس ميت كي قارمي سبقان دكتور نور يانوبو لو حقراك ما نبان لو بدنا حتى تعرف تبغون نقول مكان 17 years بان day and night لسه سعوني ما فولو أنت مركا عيب بانو كوضة بحني سكول بانو شغالة كوضة بينو ونقولي بانو بدنا هذا مركا تضبيئية طبعا سنو day and night بانو رجولي لكن مركا تما وحوها أدنو ده إن يخرج دقالوا ومركا دواري ما نيجا يهدو مكان شوي waxaan markaa caawi insha Allah aan ka hadli doonaa xogorna ku saabsan ma safarka gooradii afka Soomaaliyeed oo lagu qabtay magaalada Djibouti bishii December 2012 taasoo markaa ujeedada runtii cimriga fartanka ah sidii sababta waxa weeyaan waa cimri aad iyo aad u qiimo badan waana cimriga qofka bini aadamka naftiisa lagu qiimeeyo inuu u buuxsamay وقتيجي ما تكلم حيدي ومسؤوليتي وحول ما تكلم حيدي هيركي وهو نسير قبل لها إلهي سبحانه وتعالى حتى أنبياء أورم مسؤوليته وحلوقولي بيجي مكان فرتك جاره تاسع مكان فرتك سنة مكان قبل يجي كاتي إن أفكي والنقطة مكان ما تكلم حيدي أف ده أيوب سنتي ما تكلم حيدي وقتيجي مسؤوليته هاي لكن كل يوم ما تكلم حيدي وان كهذا دونا مكان إنك سو أي هذا قرب من بدوبي أي كسو ما تكلم حيدي بحيان قايل دانو إنه أفكار سومالي وهالس كسوية ثاني نوع وذكرين هو كنتي هذا محمد بوك هذا يو ويو بربر كوطن كل باتة بدو كان باتة بدو كان وحوي وتام ما تبغى تغلب حياة ذي ميرون بينك كلا تنسي وما تدرسكي فاملي كلي حتى ها وأفر وذا شيء وأفر تجيس وكان النور عروته ما تدرس وكان النور وهذا كان عروته وهو مركز سوما مركز اللغة أيام ما تغلب حياة ذي يدقق بقوم تدرس كل حنا ويدقق كلفت كيس ما تغلب حياة مركز
wax la aaminsan yahay diin ayuu dibitana musal ku leeyahay markay arkeen qoladaasi ayaa markaa maxay waxa ay arkeen in af Soomaaliga maadaama daadiisu aad iyo aad afafka ugu daaweyn ku jiro in markaa maxay uu ka mid noqdo afafka maxay sidaas mudan in la ilaaliyo waxa inta dheer markaa inuu yahay markaa kuwa xuduudaha iskaga gudba oo ay ku hadlaan markaa malaayiin dad waayo maabka xataa halkaas haddaad aragtaan inta gabdhuhu keenaan inkastoo uu yahay waqtigii maxay sideed region ummadda ay maxay lagu kala qaybsaday Soomaali marka laga hadlay waxa weeye maxay Djibouti laga soo bilaabo ilaa iyo maxay in Kenya waqooyiga Kenya inta ummadda degan oo dhan waxa weeyaan af Soomaaliga ayay maxay ku hadlaan marka dhulkaas u dhaxeeya gacanka Tijoore ilaa iyo jamhuuriyadda Djibouti ilaa iyo maxay Kenya waa afka lagaga hadlo afkeena maxay Soomaaliga imaatinka halka marka waxyaabaha ugu muhiimsan waxa weeyaan in qoritaankii afka Soomaaliyeed qoraal ahaan waxa la hirgeliyay waa 27 laakiin qoraal ahaan waxa maxay aqoon-yahanadii markaa deedaanka xoogga la sameeyay oo kamid ahaa maxay Allah maxay Sheekh Yuusuf Al-Kawnay qarniga 13aad oo barxadana dadka u yaqaanaan waa ninka keenay markaa Marin Cali Muudi hadda Allah maxay ku heesay alif la korreebay alif la hoosreebay alif la gooday meesha uu ka yimid waxa weeyaan maxay Sheekh Yuusuf Al-Kawnay ayaa asalka keenay say dadka markaa higaada quraanka barashadiisa luqadda carabiga ay markaa ugu sahlanaato taas maanan wax ku soo wada baranay af maxay la korreebay al maxay la hoosreebay al la gooday ayuu maxay runtii oo dadku maxay wax ku soo barteen marka af Soomaaligu laakiin wuxuu qoraal ahaan rasmi noqday waxa weeyaan waa 27 taana waxay ku jirtay sidoo maxamed sheegay go'aanadii maxay nimankii maxay kacaanka ahaa wadanka markay qabteen xoog waxay saareen maxay inay qorisiisii sameeyaan iskama iman markaa laakiin iyagu maadaama ay markaa niman military ahaayeen oo hadii military-guna waxa weeye wuxuu waa loo order oo wax mas'ala cid ay kala tashanayaan runta qaarkood marka qaarkood ma jirto baa waxa la isku keenay 18 af oo la soo qoray oo afafka Soomaaliga la rabo qof walba inuu yiraahdo afkii Soomaaliga waxa rabaa sidaan lagu qoro markii la kala shaandheeyay markaa adigu afar baa isku soo hadhay afartii isku soo hadhay baa markaa dabeetana akhirkii markaa Latin oo markaa maxay noqotay mid kaliya markaa maxay loo qaatay taasna iyagu markaa qoladan kacaanku waxay eegayeen xagga dhaqaalaha oo waxay tirahdeen waxa si samaanta matala xabiisada iyo iskuulada iyo meel walba yaala ee Latinka ku qoran hadda tirahdaan af Carabi lagu qoro ama af kale lagu qoro Isbaaniyadii lagu qoro ama tii maxay Sheekh Cabdiraxmaan lagu qoro ama Latinka daraha lagu qoro inay keenaysaa hadhow markaa waxaan in la wada bedelo dibitana la keeno wixii ku shaqeynaa dhaqaalahana markaa ma yahay dhaqaale markaa ay dawladdu awoodeeda ay lahayd marka sidaa darteed baa dibitana markaa maxay Latinka loo isticmaalo wixii inta markaa ka dambeeyay waxa suura gashay markaa in dadka Soomaaliyeed geeska Afrika ku nool mar qura markaa ay awoodeen inay markaa fariin iskugu qori karaan afkaas sabab laakiin kullu mushkiladiisa watay sababtoo waxa weeyaan hatta xiddigtii uu maxay wargeys ku horeeyay xiddigtii October markii la soo saaray dadku had iyo jeer waxay akhriyi jireen headline marka qodobka isla yihiin waxba muhiim ah ayaa laga yaabaa markaa inuu maanta la gaagaaleeyo markaa qofka markaa waxa la oran jiray hada hays waxa laga dhigay cari akhri hadda ay khadaan cari dhamay baa la oran jiray ya ilaa maanta dadku waa arkaysaa waxa weeyaan maxay maadaama aanad wixii wax joogta aanad ka dhigayn maxay quraanka iyo akhriskii in had iyo jeer markaa akhriyayso aad gaagaaleynayso gaagaadan waxa keenay waxa weeyaan wixii kama mid ah matala nolol maalmeedkaaga inka Ingiriiska markaa ku hadlayno meel maxaa u gaagaaleyna ama Faransiiska ku hadlayno waxa weeyaan iyaga inaga la baxay markaa luqadii iyadii baa marti markaa maxay afkeeni markaa way dhawan waxa kale oo markaa ay dawladda Soomaaliyeed waaga sameysay ololihii markaa waxbarashada heestaasana runtii hirgelisay Allah raafay matala Marin Cali Muudi iyadoo matala ubaxa uu ka tirsanay ayay haddana matala maxay heesa Saciid maxay Saalax uu sameeyay ay noqotay heestii markaa maxay ajalad dadkii dhaqaajisay noqotay oo runtii matala maxay aad iyo aad dadkii maxay meel walba uga gaadhay mushkilad markaa waxa noqotay markaa eray bixintii markaa maadooyinka waxbarasho iyo tacliinta ka sokow af Soomaaliga markaa wuxuu noqday qoraalka fartiisa loo adeegsaday xagga warbaahinta iyo militariga iyo ganacsiga iyo maamulka dawladda waana ruuno waxay ahayd matala maxay in tay sheegay matala maxay ikraam ay sheegay iskuuladii markaa waxa weeyaan markii la yiri luqad af Soomaali gidda lagu wada dhigo ama xafiisyadii matala maxay Soomaaliya lagaga shaqeeyo
دينا فائدة كلا دينا خسارة كلا هاي دينا فائدة كلا هاي وحنا وين مثلا ده لقدي ما مكان الربيعين سي مدة قابل لو يلا مثلا محيي وضع كي ودوي قاعدين لكن بعتذر كأنت واحد نقطة هو محي ما دوين كي ودم مكان أي ديسكريت كريسي وأرضه مكان عبسيدة كشك واحد نقطة أو دي بدأ تكون تجساب صومالي سيد مكان هو جامعة بدوران يسمر مكان واحد يدينا سلام وجهان إياه سلت رجال روقاته لكن ما دوين كي كان لود دايما مكان ما سمعين الوقت كان فايكس عودين waxay intaa dheeraa inuu guddigii markaa Soomaaliya soo saaray qaamuus ku horeeyay markaa oo la raxay Yaasiin Ismaan Kanadi afar isdootankii oo markaa daawacday ma saxeeday wasaaradda hidaayada tacliinta sare akademiyada dhaqanka oo hay markaa meeshii markaa maxay taariikhdii iyo suugaantii wixii oo dhan lagu ururnay abwaanadii oo dhan la isku wada keenay halka markaa ma saxeeday la yiri fariisaha ka soo dhameysana markaa ma saxeeday soo saara markaa maxay wixii ay umad markaa suugaan iyo dhaqamada masaar maxay u lahayd oo deesan u noqon lahaa waxaas oo dhan markaa runtii waa burbureen waxaana ku burbureen waxa weeye dagaalkii sokeeye 1990kii ka dhacay ayay noqotay markaa waxaas oo dhan in raadkoodii meel loo raacaa la waayay baxsaskii markaa qaarkood waa kuwa Jabuuti markaa ku dhacay oo Jabuuti markaa iyadu ay arrintii markaa ay gacanta ku qabatay iyadoo ka faa'iideysatay runtii waana dee wadan labaad oo ilaa maanta inagu maartay iyo dawladda saa sheegtay laakiin anagu weli waxaan u arkaynaa inay tahay mataqaana maxay حديث عشان تأمل تقارن حيدة قبل كمدة هو وضع عملية هو كلام ما هو تسكين يجوجان إنه كمدة هاي سيف عملي مركا أو قبتين نمكي حتى أبوانا دي نفس الكودي بيها قاعد سوق هنا ومركا صور سارين مركا سلسلة ذات صعود الجوتات ومركا ما في الحين هذراوي عبد القيس مثلا الحين الله نحن يم إذا جاي تذكر مثلا لا أضيء أو جامع عيسى الله من حديثه إن هاكو يسووا كيرد بيتنا مركا في أكاديمية رسمية ودتيه هراء دقن كيس سومالي بالبرتي ميد مركا إن مركا ما تجيبوت لقى أساس سومالي مركا وحي وكلا بديسي مركا أفوف كأجنبية أو أي سي وقوم برتان أما وقرن كران يفكر كود يكون عبران تاسي مركا وحي كنتين ومركا وما حدا وهجاس أف أو مركا كورتان كي يكون عجي سيب أي ثاجان وعقلوا ماشى مركا كبحدي أديك سجي يتحقلنتي حركي لوردي سومالي ما تقدر أنت ناس يعيشون أرتيكل في قفل وسوي ضروري قرطان وهي من لور راعه وح لور راع عليه مجرو مرة نجير مركا وحويان مدور بس يسوي ضروري مركا وقرني مركا لهجديه بقى مركا ما يشي صوق عليه مركا وتيلا قبل حسين إياهي وح صوب بحد مركا حالة ومركا وكو ما سبحان قدام قضوه قف كسو مركا ضمير له أو أما ما سبحان ما تقدمه كجرتو ودناها مركا ما سبحان ضنيه مركا maxay ama umada ma saxay wixii khasaynayaa waxa kuna kaas marka lagu soo bandhigay hadaba runtii aad iyo aad u qiimo badnaa muddo dhowr sanana marka baad saxay runtii aad looga shaqaynayay qaamuus xajmigiisu runtii aanan qaadi karin waa soo qaadi lahaa mid baxbiiska iyaan laakiin de waxay noqonaysaa in maanta maxay runtii aan de waxa kale oo dhammaan soo tagay jiliyaan soo qabto marka waxa loo bixiyay qaamuuskaas Soomaal baa loo bixiyay waa qaamuuska kaytaan قاموسكا مركا وحو يعني إسماعيل مركا إلى آخر السنة وحو يسكت إنه مركا ومركا بحيث يقديه وسميه أو قروا ولا ميل الله جرو إلا أنت أفصومالي ميل كسر لك هذا مية مقالب قاموسكا نحوكا كوبية مركا قاموسكا نحوكا كوبية هاي تضوات تكون أو إري أو صومالي أنت نعم هكا كو الله تعالى كنت ريني والله مريني بماذا waxaan ku yiri waxaan ka yiri waxa iga tiri Soomaal marka 7,000 oo eray taasi mushkiladu waa maxay eray cusub in haduu ku soo baxo Soomaaliya marnaba inta